السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مدن يالدمانتين بميل والبواد كجوكتان عالمك هالكاني واي اس تي في waxaad ku soo dhawaataan wararka haatan naga soo gaadhay deegaanka dalka iyo waliba caalamka intiisa kale oo aan idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan qodobada haatan wararka ugu doorkarona waxa kamid ah munaasabada lagu soo gunaanadayay socdaalkii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftigii uu hogaaminayay waxay ka dhacday magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markay dhameysteen booqashadii ay ku joogeen waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay ka duuleen garoonka diyaaradaha Garaadweylaha ee magaalada Jigjiga waxaana sagootiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo horkacay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar sidoo kale wararka waxaad ku daawan doontaan baarlamaanada wadamada Afrika iyo Aasiya ayaa soo gabagabay kulankoodii ay yeesheen inta waa qaar ka mid ah qodobada wararka haatan u diyaar garooba warkii oo fidsan ismaqal aragti wanaagsan mar kale waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan munaasabada lagu soo gunaanadayay socdaalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftigii hogaaminayay waxay ka dhacday magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka sida warbixintan ku sheegay wariye Maxamed Ciise labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya oo ahaa laba wadan oo jaar ah lehna xiriir wajiye badan oo gun weyn ayaa waxa ka hor xurashada dawladda federaalka Itoobiya iyo burburka dawladda Soomaaliya ay ahaayeen dawladihii markaasi ka talinayay dalabadaasi dal laba dawladood oo markaasi uu ka dhaxeeyay xiriir colaadeed isla markaasina kala dilay labadii bulsho weyn ee jaarka ahaa kadib markii ay burbureen labadii dawladood ee shuuciga ahaa ee markaasi ka kala talin jiray labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxay dhismeeyay kadib dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay dadaal ballaaran u gashay sida ay markaasi wax ula qaban lahayd Soomaaliya ugana badbaadin lahayd nacabka sida nabadiidka iyo argagixisada waxaana dadaaladaasi kamid ahaa shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee sanadkii 1993 lagu qabtay magaalada Addis Ababa iyo ciidamada nabad ilaalinta ee dalka Itoobiya ay u dirtay dalkaasi Soomaaliya xiriirka labada dhinac ayaana waqtiyadii dambe si fiican u soo kobcayay ilaa uu lugihiisa isku taagay xiriirka ka dhaxeeya dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalka Itoobiya iyo dawladda federaalka Soomaaliya taasoo ay markaasi ku cadeynayso booqashada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ku yimiday dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba socdaalkan uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku yimiday dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay wafdigu ka soo kicitimeen magaalada Muqdisho toosna uga soo degeen garoonka diyaaradaha ee Garaadweylaha ee magaalada Jigjiga ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo markaasi hor socday madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar tii oo dhanka kalena madaxweynaha deegaanka uu wakiil ka ahaa oo markaasi uu soo wakiishay ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya Haile Mariam Desalegn inuu markaasi wakiil ka noqdo soo dhaweeyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana wakiilashadaasi ku tusaysaa kalsoonida ay dawladda federaalku ku qabto dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dawladda federaalku ku qabto dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sinaanta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalku ay u siman yihiin dalkan Itoobiya haddaba booqashadanu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wehelinayeen wafdi ballaaran oo isugu jiray wasiiro safiiro iyo waliba mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay goobo kala duwan oo ay kamid yihiin mashaariicaha horumarineed ee deegaanka iyo xarumaha waxbarashada sare dalka ku soo booqdeen ayaa waxa inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka bixin deegaanka loogu qabtay hoolka shirarka ee kaalihi munaasabada markaasi lagu soo gootinayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayay munaasabadan oo lagu soo gunaanadayay booqashadii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayay ay ku yimaadeen deegaanka ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar afayeenka golaha xildhibaanada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada deegaanka golaha kaabineetka mas'uuliyiinta agaasinada iyo waliba garwadeennada laamaha kala duwan ee xafiisyada dawladda kulankan oo ugu horeyntii furay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa uu madaxweynuhu cadeeyay in booqashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay tahay booqasho taariikhi ah isla markaasina xusuus gaar ah u leh deegaanka muddadii uu joogay madaxweynuhu ilaa booqashadiisii waa socdaal taariikhi ah joogitaan taariikhi ah muddo laba habeena inuu ku sugnaado magaalada Jigjiga waxaan dhigi karaa waa arrin hoosta ka xariiqan oo u baahan mar kasta
in la xasuusnaado. geedi socodka horumarneed ee markaasi lagu xaqiijiyay horumarka deegaanka oo ahaa mid la isbarbar waday horumarka iyo nabadgelyada lana lamaaneeyay ayaa waxa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo arintaasi ka hadlayay sheegay inay lagama maarmaan tahay in dowladda federaalku ay can ka dhigto lamaaneynta ka shaqaynta nabadgelyada iyo horumarka. dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya shalay waxa lihii aan ku soo guuleysanay wadadii saxda ahayd aan maray qayb kamid ah oo aan leeyahay waxay u tari doontaa hadii la yiraahdo dowladda Soomaaliya yaan dooni halkan inaan madaxweynaha waan ka hadalay laakiin waftigan kale inay maqlaan iyaguna taas waa maxay awal markan hawsha nabadgelyada ka shaqeynay waxaan wadaan haynay waxay ahayd marka nabadgelyada aan dhamayno yaan horumarka dhamaynaynaba yaan sameeynaynaba ahayd taas khalad bay noqotay waxba waa lagu keeni waayay laakiin waxaan go'aansanay inaan nabadgelyada iyo horumarku ayna kala maarmaynin oo la isgarab wado oo waxa weeyaan maxaan ku raadnaa nabadgelyadiina hawl laga wado horumarkiina la wado tusaale ahaan inaan ceelkii qodno anagoo nabadgelyada ka shaqeynayna iskuulkiina sameeyna anagoo nabadgelyada ka shaqeynayna laakiin qorshe marka hore waxa marka nabadgelyada dhameeyna wadanku nabad noqdo ayaa ceelkana la qodi biyahana la sameeyay taa way isbuxin weeyday marka haddaba waxaan leeyahay idinko shaqada maxaan ku raadnaa la dagaalanka ugus ku jira inaad maxaan ku raadnaa garab wadaan tii horumarkana si ay maxaan ku raadnaa ay arintu u noqoto mid uu shacabku faraha la soo galo. madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa munaasabadan lagu macasalaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftiga uu hogaaminayay uga mahad celiyay mas'uuliyiintii kaalinta buuxda ka qaadatay qabsoomidda booqashadan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya mudane Hayle Maryam Desalegn iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Itoobiya Dr. Tewodros Adhanom. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda federaalka oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalkeena mudane Hayle Maryam Desalegn oo arinta sababay yaan rabaa inaan u mahad celiyo oo waxa weeyaan anagana noo wakiishay xasan waxa weey maxaan ku raay deegaanka Soomaalida iyo federalismka marka aad saad u aragtaan federalismka best example waa deegaanka Soomaalida ma taqaanay tagayiri waxaan rabaa sidoo kale inaan maxaan ku raay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dr. Tewodros Adhanom inaan maxaan ku raay aan u mahad celiyo. gabagabadii khudbadiisa ayaa waxa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mahadnaq ballaaran u diray urur goboleedka IGAD oo markaasi dadaal ballaaran la garab jooga dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sidoo kale uga mahad celiyay maamulka iyo shaqaalihii ka soo qayb galay munaasabadan si ay markaasi ugu heelan yihiin macasalaameynta waftigan. madaxweyne nabad ku galbo shaqaalaha halkan fadhiya wasiiradan iyo waagu markuu bariyo halkan yimaadeen ilaa waxay u fadhiyeen intaasna waxa weeyaan inay ay goodbye ku yiraahdaan iyagana waxaan uga mahad celinaynaa dulqaadashada iyo sida maxaan ku raacay intaas bay u fadhiyeen intii madaxdoodu imaanaysay aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum dhankiisa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankani ka hadlay ayaa uga mahad celiyay xukuumadda iyo shacabka deegaankaba soo dhaweynta ballaaran ee walaaltinimadu ku dheehan tahay ee markaasi lagu qaabilay dadka Soomaalida ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku nool dhamaantood iyo mas'uuliyiintooda madaxdooda waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa soo dhaweyntii aad iyo aad u qiimaha badnayd walaalnimada lahayd shucuurta maxaan ku raad dadnimo ay ku dheehnayd aniga iyo wafdigaygaba halkan nalagu soo dhaweeyay waan ka mahad celinaynaa waa arin maxaan ku raadaay aad iyo aad noo dhiiri gelinaysa inaan ku sii dhiirano ku sii adkaano walaalaynta Soomaalida meel kasta ay joogaan iyo nabadda iyo deganaanshaha gobolkan geeska Afrika iyo horumarinta cilaaqaadka iyo saaxiibtinimada iyo walaalnimada Soomaaliya iyo Itoobiya ka laba dawladood oo geeska Afrika ku nool ahaan intaba waxa halkan jigjigana laga siiyay maxaan ku raadaay awood dheeri ay energy iyo tamar dheeri ah oo aan ku hirgelino maxaa ay hadafkaas. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu halkaasi ka ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono nabadda ummadda Soomaaliyeed gobolkan geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalidu ay degto waayahan waxa ugu muhiimsan qof kasta oo shakhsi kasta ah oo maxaa qowmiyadda Soomaalida meel kasta ay ku nool yihiin ay mar walba u taagan waxay ahayd nabadda. madaxweyne Cabdi waa u mahad celinayaa in halkan maanta
nabadoonnimadii Soomaaliya dhexdeeda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ku in loo nabadooneeyo nabadna loo raadiyo calaamooyinkii nabadoonka lagu yaqiinana halkan maanta lagu guddoonsiiyay waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono nabadda iyo dadka Soomaalida muddadii ku guda jiray madaxweyne xasan sheekh maxamuud booqashadii uu ku yimid deegaanka ayaa waxay shacabka odayaal dhaqameedka waxgaradka iyo waliba xukuumadda deegaankuba ay fareen fariimo kala duwan oo isugu jiray hadal iyo ficil markaasi lagu tusayay horumarka deegaanka fariimahaasi oo ay markaasi ugu dirayeen shacabka dawladda federaalka Soomaaliya inay u jeestaan horumarka iyo nabadgelyada waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar labaad ballan qaaday inuu fariimahaasi si buuxda u gaarsiin doono shacabkaasi dadka Soomaaliyeed waxaan u geyn doonaa haddii aan la yiraahdo fariinta aad noo dhiibteen oo ah war annaguna waan noolnahay waana tashanay waana qurxoonnahay horumar wanaagsan iyo dadnimo wanaagsanna waan ku tilaabsanay Soomaaliyana sidaas oo kale aan la jecelnahay iyo fariinta kale aad noo dhiibteen oo ah wax kasta oo Soomaaliya wanaajinayo waan samaynaynaa haddii aan nahay dadka iyo dawladda deegaanka iyo haddii aan nahay dadka iyo dawladda Ethiopia ba fariintaas ah oo aad noo dhiibteen waan gaarsiinaynaa shacabka Soomaaliyeed haddii alla yiraahdo waxaan idin ballan qaadaynaa dhinaceena dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maxaan ku raadaa shacabka Soomaaliyeed dhamaantood ayaguna meel kasto ay joogaan in ay ku shaqayn doonaan spiritkaas iyo niyadaas wanaagsan ee walaalnimada ah intay socotay munaasabadani lagu sagootinayay waftigana ayaa waxa madaxweynuhu khudbadiisa ku xaqiijiyay inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin ayna ku faanayaan horumarkan ballaaran ee deegaanku ku talaabsaday mar kale waxaan idin kugu celinayaa idin xaqiijinayaa horumarka iyo wanaaga aad gaarteen ee dawladda deegaanka iyo shacabkeedu ay halkan ka gaareen iyo doorka muuqda ee aad ku leedihiin guud ahaan waddankan Ethiopia la yiraahdaa in waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in ay tahay arrin aan aad iyo aad ugu faraxsanahay na dhiirigelinaysa annan Soomaali ahaanna aan ku faanayno oo aan leenahay dadka Soomaalida markii fursad loo abuuro oo fursad la siiyo oo madaxdooda iyo mas'uuliyiinta ayagu ay doorteen ay ka soo baxaan kaalintii loo doortay ee fursadda ay bixiyaan in dadka Soomaalidu dad wax qabsan kara meelo umada badan ay muddo dheer ku qaadatay iyo waxyaabo guula ah oo muddo dheer ku qaadatay dad yow kalena in ay muddo kooban oo gaaban Soomaalidu ay uga gudbi karaan daliil cad inaad u tihiin dadka Soomaaliyeed waan gaarsiin doonaa haddii alla yiraahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale cadeeyay inay hawl ku deesho mudan ay tahay oo wax loo dhigaa aanay jirin talaabada iyo waliba dadaalada ay xukuumadda deegaanku dib ugu saxayso maskaxda iyo aragtida dhalinyarada hadda ka hor ururada nabadiidku ay maskaxda ka khaldeen waqti xaadirkana dadkooga dhinaca ka raacay wiilasha shalay nala soo tusay ee dhowrka sano duurka ku jiray ee ayagoo raameystay oo maxaankooda injirtu ku baxday ee intaasoo nolol xumaa ay u sii dheertahay dambiga ay galayaan iyo walaalkooda ay dilayaan iyo maanta siday u nool yihiin nolol qurxoon nadiif ah cibaadadeeda wadata mustaqbal leh hantiilayaal yay noqdeenba maanta oo waxaba sanadka aakhirkiisa waa xisaabtamayaan maxaa faa'iido soo gaarooba ka hadlayaan waa hadda ninkii shalay muxuu ahay duurka muxuu ahay nolosha adag ee qaabka daran ee muxuu ahay saas ku jiray maanta ninka ku xisaabtamayo sanadka aakhirkiisa maxaa ii soo haray markii qarashkii la iga jaray shaqadii aan qabtay ee intaana mishaar qaadanaya ee qoyskiisa iyo reerkiisa biil siisanaya asoo mishaar qaadanaya haddana sanadka aakhirkiisa dhahayo maxaa ii soo harayo muxuu looga shaqeey inta hanti lama u imaan hanti kale ma ay soo noqon muxuu ahay markii ay ka imaanayeen oo markii ka imaanayeen hanti lama ay imaan ya xirfadii iyo suuqii iyo hantidii iyo wixii dhammaan la isugu daray xirfadaa la baray shaqadan qabaa la yiri shaqadii markii uu qabtana hawsha uu qabtay ayaa la yiri iskuulaadka kuraas u samee dawladda ka iibsanayso xafiisyada dawladda maxaan ku raay miisas u samee iyo xafiisyo dawladda ka iibsanayso isbitaalka maxaan ku yiraahdaa sariiro u samee dawladda ka iibsanayso shacabka muxuu ahay furniture-ka qofkii rabo waa ka ha ka iibsado kadibna muxuu ahay intaas uu shaqada hayana mishaar qaado oo ka qaado hawshaada
kadibna wixii faa'iidaa kuu soo hara sanadka aakhirkiisa ida ma wax lagu doorsadaa jira waxaasi se ma ka suurto geli karaan reer hebel ma suurto geli karaan waxaasi waa maya reer hebel ma suurto geli karaan waxa suurto geli kara waa nidaamka dawladnimada bas oo lagu gaaray marka anigoo og in dadkaani wacyigooda uu bisaylkaas gaarsiisan yahay haddana